كنت أنا ورئيسنا دكتور نداون المركز تقوى شفتان هل كاني و STN أو أنا ذكرت قد بينه برامج كني هميل الشو طبعا ده waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo ay kamid yihiin fadaxad ka dhacday Facebook iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee madaxa Facebook uu hor iman doono golaha sanadka ee wadankan Mareykanka fadaxadaasi maxay ku saabsan tahay waxa kale oo isaguna aynu barnaamijkeenan Himilo Show aan ku soo qaadan doonaa furfurnaanta iyo isbedelka cusub ee ku yimid wadanka Saudi Arabia arrimahaas oo dhan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenan Himilo Show marka horese aan ku bilaabo fadaxada Facebook waxa ay tahay iyo nooc ay tahay waxa garabkayga bidix fadhiya عوار عبد الله أو يسوي إيش السومري ونكور قلي أرمها سو سيدا يقول عيان وياي أول سؤال شو ورسان كودي بالمركو ورسورتا فده حد محيكو سابسنت إن علي ورتا أد بعد ما سنتهاي هذه جيو دبيناها تلفزيون كل حرام بعد دي سلامية رونهانتي إن ورونتها وحي هيد فده حد أدوين أو معلومهن لقى هذا الهيئة محوها إن ورباهين تمريكان كأيو عالم كأردن إن وحي سوشع بحذي toddobaadadan kadib markii la ogaaday in shirkad dhinaca online-ka ah wax ku xayeysiisa oo macluumaadka dadka ururisa oo la yiraahdo muxuu ahaa Cambridge Analytica oo xarun kale xarunteeda ugu weyn uu yahay wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London laakiin sida la sheegay ay leeyihiin dad Mareykan gaar ahaan nin maalqabeen ama qoys maalqabeen oo la yiraahdo muxuu ahaa Robert Mercer marka fadaxadan waxa ay ka soo bilaabantay caliyow sanadkii doorashadii 2016 markii doorashada la dooranayay madaxweyne Trump ayaa shirkadan waxa shaqaaleysiiyay qaybta propagandada ee xisbiga Republicanka ama jamhuuriga ah marka waxa ay Facebook ka codsadeen in ay dadka ay ka qaadi doonaan dad kooban ra'yi ururin ay ka qaadi doonaan Facebook sidaas bay ay ku soo galeen ayna muxuu ahaa lacag ka qaateen laakiin ujeedadii ay Facebook u soo galeen way dhaafeen marka hore waxa la isku ogaa inay waxoogaa dad kooban ay ra'yi ururin weydiiyaan laakiin waxa ay sameeyeen waxa ay macluumaadkii gaarka ahaa ee dad gaaraya malaayiin oo kor u dhaafay muxuu ahaa 780 milyan oo qof ay macluumaadkii gaarka ahaa ay qaateen oo ay ogaadaan magacaagii halka joogto waxa aad ka hesho waxyaabaas ujeedada ay u sameeyeen waxay ahayd in ay xisbigaasi u ololeeyaan oo in yacni macluumaadkii marka la ogaado caliyo de waxaad ka hesho iyo taageeranimadaada waxa laga xiriyaa macluumaadkii lagu soo gudbin lahaa ee dhinaca kale ka lahayd kadibna marka waxa lagu soo gudbinayaa propagandadii xisbiga jamhuuriga marka fadeexadu taas ay ku bilaabantay oo saas ay ku soo baxday hadda marka waxa lagu daba jiraa oo baaritaan baa socda marka goor bilaabantay fadeexadu hawshu halkaas bay ka soo bilaabantay oo sanadka 2016 laakiin hadda baa la ogaaday in ay shirkadaasi ay macluumaadkii gaarka ahaa ay iyadu qaadatayba ee Facebook ku jiray oo ay si xun u adeegsatay oo ay xitaa rabto in shirkado kale ay ka sii iibsato waxa jirta in la sheegay in macluumaadkaasi dadka la haday isla markaana Facebook laftiisa uu kaydiyo maxaa ka jira marka taas waa ta kale ee mushkiladda kale ee ay dadku aad uga soo qaylayaan Facebook caliyow waxa iyadana la ogaaday in uu macluumaadkii gaarka ahaa isagu kaysado مثلا فيسبوك markii aad soo gashay xataa fariimihii aad dirtay kuwii aad heshay dadka muxuuha macaamiisha kula ama contactska ku jira oo dhan uu kaysan yahay caliyo markii cadaadiskaasi la saaray hadda waxa ay bulshada u sii daayeen in macluumaadkii ay iyagu kaysadeen aad adiguna soo dejisan karto dadweynaha waanu tusaynaa sida aad u soo dejisan karto macluumaadkaagii waxa marka caliyo markaad meeshaasi tagto waxaad helaysaa adiga cali ahaan xitaa tan iyo markii aad Facebook furatay qofkii aad fariin u dirtay kii ku soo diray cod aad u dirtay waxyaabihii oo dhan waa ku jira halka okay fariin aad dirtay oo aad tirtirtay hadana hadii dib loo noqdo Facebook ma ku kaydsan yahay mise way tirtirtay taad adigu iska tirtirtay مثلا hadaad yaasiin fariin u dirtay sanad ka hor oo adigu tirtirtay waa ku jira uu kaydsan yahay hadda waa soo saaran kartaa adiga laftiga soo adiga laftiga dib baad soo dejisan kartaa marka tirtirida hore waxba kama jiraan ha waaye hadda waxa la bilaasay in la hortago golaha sanadka dalka Mareykanka halkay mustaqbalku sida uu noqonaya wali fari kama qodno oo gabadhan sanadkay noogu jirta aqalka sanadka federaalka ee la yiraahdo Amy Klobuchar ayaa ahayd dadkii ugu horeeyay oo Amy Klobuchar ayaa iyadu ahayd sharci yaqaanadii ama sharci dejiyaashii ugu horeeyay ee iyagu codsaday in uu ninkani Mark Zuckerberg la dhaho in Facebook isagu sameeyay madaxdan ka ah inuu hor yimaado aqalka sanadka federaalka wadankani
si bal su-aalo looga weydiiyo, waayo dee macluumaadkii qofka shaksi ahaaneed ayna ahayn in la ilaaliyo ayaa isagii oona muxuu ahaa dadkii aanan u sheegin uu isagii kaydsaday, shirkado kalena uu ka iibiyey oo dee waxbaba ma qarsoonaba. marka waxaa la sugaya xitaa wadamada Yurub waxa ay dalbadeen in uu hor yimaado muxuu ahaa in baarlamaanada wadamada Yurub, laakiin ilaa iyo hadda qareenada isaga u doodayay waxay ogolaadeen oo kaliya in uu hor yimaado muxuu ahaa in baarlamaanka wadanka Mareykanka. waxay sheegeen ilaa ina macluumaad fara badan ka haysanin sida uu sharciga u shaqeeyo wadamada Yurub. sidaa darteed weli way ka fikirayaan inuu hortago mid kamid ah baarlamaanada Yurub ama sida Germany ama Ingiriiska oo kale. marka waxa gabagabada sheekadu ay tahay Facebook inaan ahayn meel qofka macluumaadkiisu ay safe yihiin. inna kama qarsamo. iminka dad badan oo caana iyo aqoon-yahano ah oo ay ku jiraan xitaa dad professor ah oo gobolkeenan u dhashay waxayba ku taliyeen in Facebook qofku iska xiro. qaarkood dad caani waa iska xireen. waxa kaloo caliyow soo baxday in hadda la sheegay oo maantaba soo baxday in aad adigu fariinta aad dirtay qof hore u dirtay ama aad kula qaldantay aad iska masixi karto. taa laftigeedu Facebook markii hore dadka umay sheegin, laakiin waxaa lagu ogaaday dad uu fariin u diray yarkani Facebook ale Mark Zuckerberg ayaa fariimihii uu soo diray bilo ka hor ama toddobaad ka hor ayaa la waayay. kadib markii ay isweydiiyeen dadka aqoon-yahanada ee ku takhasusay muxuu ahaa cilmiga computerku ay Facebook la xiriireen, waxay yidhaahdeen muxuu ahaa arrinkaasi wuu jiraa, laakiin waxaa dadka loo soo bandhigayaayo awood u yeelan doonaan bilaha soo socda in fariimihii tusaale ahaan adiga cali aad qof ku qaldantay ama aad dirtay inaad adiguna masixi karto una qofki qaadan karin mar dambe. wadaag daawadeelkaasna waxau ahaa Cawaale Cabdilaahi oo aan ka wareysanayay fadeexad ka dhacday Facebooka iyo madaxa Facebook oo dhawaan hor iman doona golaha sanadka kana qancin doona macluumaadka lagu kaydiyo Facebooka iyo sida uu u noqon karo mid badbaada amaba markaasi looga xanabi karo dadka kale. macluumaadkaasi wixii ka soo kordhana dib ayaanu daawadayaal idinla socodsiin doonaa.